Madaxweynaha Galmudug ayaa war waxa uu ka soo saaray khilaaf la sheegay in uu u dhaxeeyo madaxweyne Xaaf iyo hoggaanka sare ee Ahlu Sunna. Dhanka kale, qabanqaabada shir uu ku baaqay madaxweynaha Galmudug ayaa waxa ay ka socotaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Liibaan Nuur Xasan ayaa warkan ka waramaya. Maamulka Galmudug ayaa war ka soo saaray warar dhawaanahan baa la isla dhexmarayay kuwaasi oo sheegaya in khilaaf uu soo kala dhex galay hoggaanka ugu sarreeya Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. qoraal lagu daabacay barta Facebook ee madaxweyne Xaaf ayaa lagu yiri waxba kama jiraan wararka lagu baahiyay baraha bulshada ee la xiriira kala aragtiduwanaansho u dhaxaysa madaxda Galmudug. waxaana jiray warar ay baahiyeen warbaahinada qaar kuwaasi oo lagu sheegay in hoggaanka Ahlu Sunna iyo madaxweyne Xaaf uu soo kala dhex galay khilaaf salka ku haya doorashada maamulkaasi oo madaxweyne Xaaf uu doonayo inay qabsoonto sanadka 2020 halka dowladda dhexana ay doonayso in doorashada maamulkaasi la qabto bisha July ee soo aadan. dhanka kale waxaa laga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug diyaar garowga shir lagu wado in toddobaadka soo socda ay magaalada Dhuusamareeb ku yeeshaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaas oo dhawaan isugu yeeray madaxweyne Xaaf. kulan looga arrinsanayay qabanqaabada shirkaasi ayaa xalay magaalada Dhuusamareeb waxa uu ku dhex maray madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo gudoomiyaha guud ee Ahlu Sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan. waxaana la sheegay in kulankaasi uu ku soo dhamaaday is-afgarad. waxaana jira warar sheegaya in madaxweyne Xaaf uu Isniinta u ambabixi doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaasi oo kulan hordhac ku yeelanayaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka. kadib kulankaasna ay isugu tagi doonaan toddobaadka soo socda magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo shir uga cilaamiyay madaxweyne Xaaf.